بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa maanta inaan la hadlo dhammaan siyaasiyiinta iyo duubabka dhaqanka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan rabaa inaan la wadaago maqaal aan ugu magac daray Jowhar oo qarka u saaran inay weyso caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle yaa ka mas'uul ayaa marka su'aashaas ayaa mudan in la isweydiiyo dhammaan dadka ku nool degmooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle waa dad walaalo ah oo labada gobol si isku mid ah u wada daga haddana waa laba gobol oo wax isku darsaday Soomaalidu waxay tiraahdaa xoolo jirtu xoolaha waa wada jiraan waana kala jiraan markaan taariikhda dib u milicsano qaar ka mid ah hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay kula gorgortameen markii la rabay in la dhiso dowlad goboleedka Hirshabeelle siyaasiyiin ka soo jeeday gobolka Hiiraan saddex qodob ayay kula heshiiyeen oo kala ah kow tirada xildhibaanada ugu badan in la siiyo reer Hiiraan kamana fakarin odayaashaas saami qaybsiga labada gobol iyo saameynta ay yeelan karto marka la codeynayo qodobka labaad waxay kula heshiiyeen in kursiga madaxweynaha la siiyo gobolka Hiiraan qodobka saddexaad in caasimadda la siiyo gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar heshiiskani ma ahayn mid ay ka qayb galeen dhammaan duubabka beelaha degan labada gobol ee Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe balse dad gaar ah ayaa intay albaaba isku soo xireen go'aankaas gaaray waxaana dabada ka riixayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dareynayay inuu dib ugu soo laabto kursiga madaxweynihii hore isagoon ka fakarin aayaha labada gobol iyo sidii loogu dhisi lahaa maamul waara oo saami qaybsi sax ah ku dhisan wuxuu qalinka ku duugay heshiiskaas duubabkii dhaqanka ee horboodayay heshiiskan kana soo jeeday gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sidoo kale u ololeeyeen inay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle la siiyo nin reer Hiiraan ah iyagoo sal uga dhigayo martiqaad uu u fidiyay ogaaska beesha gaaljecel oo reer Hiiraan ah iyo islowgiisi markaa Ismaan Barre Maxamed oo martiqaadka dartiisa ku helay kursiga gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle odayaashaas oo uu soo diray madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud waxaa laga soo dhaweyn waayay dhammaan beelaha dega bariga iyo galbeedka magaalada Beledweyne waa aragti aad u gaaban in mas'uuliyad xil inta leeg oo gudoomiye baarlamaan ah martiqaad oo kaliya lagu bixiyo waa masiirkii ummadda ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu qamaaray duubabka dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe badankooda waxay degan yihiin gobolka Banaadir waxay u soo xuleen xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle xildhibaano deegaankoodu xamar yahay xamar degan xildhibaano badankooda xamar degan oo siyaasadda ku cusub intooda badan aqoon badan aan u lahayn saami qaybsiga siyaasadeed oo ay haddana dhibayso inay hal maalin dhex joogaan xarunta kuna shaqeeyaan magaalo madaxda marka laga reebo dad yar oo fara ku tiris ah oo xilkas ah arintaasi oo waxay keentay inay ku daydaan xildhibaanadii kale ee ka soo jeeday gobolka Hiiraan caasimadii waxay iska noqotay meel haawanaysa oo aan cidi ku noolayn xildhibaanadii la soo xulay inay matalaan loo soo xulay shacabka ku nool Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe lagana sugaayay inay ilaaliyaan saami qaybsiga siyaasadeed ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan gudoomiyihii iyo labadii ku xigeen ee baarlamaanka waxay intooda badan ugu shubeen iyagoon iska warqabin musharaxiin ka soo jeeday gobolka Hiiraan meeshaas waxaa ka soo baxay labadii kursi ee ugu sareysay Hirshabeelle iyo saddexdii ku xigeen laba ka mid ah inuu gacanta u galo mas'uuliyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo awood qaybsigii shanta kursi ee golaha sare ay noqoto 5 dalool 4 dalool inay gobolka Hiiraan marto hal madaxweyne ku xigeen ayaa u soo haray gobolka Shabeellaha Dhexe oo shaqadiisa iyo awoodiisa dastuuriga ah ay ku kooban tahay oo kaliya wixii madaxweynaha u dirsado wax ka rido waa waxaan macno badan ku fadhinin waxay noqotay 100 geela hal niri ku dhex darso 100 geela hal niri ku dhex yeelay noqotay dawladii loo dhisay Hirshabeelle xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka Shabeellaha Dhexe balse deegaankoodu ahaa Muqdisho
waxay hormuud ka noqdeen burburinta horumarkii caasimadda ay higsanaysay marka laga reebo in yar oo xilkas ah. sidee ayay horumar ku gaaraysaa caasimad aan haba yaraatee wax shaqo ah ka soconin, xildhibaanadii ka soo jeeday caasimaddana guryahoodii xamar ku yaalay iyo xeebta liida hoteeladeeda ay shaqo ka dhigteen inay fadhiistaan maalin walba. haddaan isweydiinno maxaa u soo kordhay caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle Jowhar muddo 3 sano kadib oo ay dhisneed dowlad goboleedka Hirshabeelle, laba madaxweynena ay soo marayso, laba madaxweynena ay maraysa hadda, waxaan dhihi karnaa waa muqaabil laa shay oo 4 iyo eber ayaa lagu diray gobolka Shabeellaha Dhexe iyo degmadii Jowhar. 0 ayaa u korortay aan dhihi karnaa. ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u soo jeediyo duubabka dhaqanka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe. waa ilduufteen markii hore, safarkii hore waa ilduufteen, awrkana hal dhinac ayaad ka rarteen, wax qumanna ma saaranin. dadka aad matalaysaanna wax quur ah ayaad u qaadeen, safar kale ha ilduufina ama ummadda horteeda ka leexda. waxaa kaloon rabaa inaan u soo jeediyo shacabka ku nool oo degan gobolka Shabeellaha Dhexe, u dhashay iyo ku dhashay oo meel kala degan la hadli maayo. waxaan la hadlayaa shacabka guud ahaan ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe oo isla markaana degan inta laga gaarayo doorasho hal qof iyo cod ah oo deegaan ku salaysan, duubab reer Muqdisho ah, mas'uuliyiin magac qabiil lagu keenay, masaafur ka yimid Muqdisho iyo meel ka sii dheer, musmaar ku soo kordhin maayo magaalo madaxdee inay mar kale idin maamulaan maskaxdiina ka saara. waxaan ku soo gabagabeynayaa Jowhar waa la siray.